munaasabadani oo ahayd mid lagu taageerayay wasiirada cusub dhawaan uu soo magacaabay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre isla markaana si diiran loogu soo dhaweynayay wasiirka boostada isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada ayaa maanta waxa lagu qabtay magaalada Muqdisho waxaana ka qayb galay munaasabadaasi odayaal aqoon-yahano siyaasiyiin culimaawidiin dhalinyaro iyo xubno ka socday maamulka Hirshabelle oo goobjoog ka ahaa munaasabadaasi wararkaasi waxaa ka hadlay odayaashii lagu casuumay sidoo kale haweenkii goobjooga u ahaa iyo ex xildhibaan hore Axmed Gaagaale oo dhamaantood isku raacay inay si weyn u taageersan yihiin wasiirka cusub ee wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada waxayna sheegeen in xilligaani uu ka samata bixin karo dhibaatada haysata shacabka Soomaaliyeed waxayna u soo jeediyeen baarlamaanka Soomaaliya in sida ugu dhaqsiyaha badan ay u meelmariyaan wasiiradan cusub wasiirka boostada iyo isgaarsiinta tiknoolajiyada Cabdi Canshuur Xasan Fidni إن شاء الله waxaan jecelnahay in dawladda hadisay ay taaba gasho dawladda noo dhalatay xukuumadda aan soo dooranay saarteen aan ku soo dooranay mas'uuliyiintii aan baarlamaanka ka tirnay maanta waxaan ka codsanaynaa mar labaad in saddexaadba wasiirada gaar ahaan wasiirka isgaarsiinta iyo boostada tiknoolajiyada Soomaaliya injineer Cabdi Canshuur wasiir injineer Cabdi Canshuur oo ka mid noqday ama nasiib u yeeshay inuu ka mid noqdo golaha cusub ee wasiirada waxa kale sidoo kale aan fursadan ka faa'iideysanay aan hambalyo guud ahaan u dirayaa dhammaan shacabweynaha Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan dadka ku nool gobolka Banaadir dadka ku nool Hirshabelle aadam taageerayna arrinkan waana ku mahadsantihiin saa ugu yeerteen wixii warahna waa noo dhiman yahay oo rag badan ay ka dambeyn doono salaamu calaykum waraxmatullahi xafladan isku yimid macnaheedu waxay tahay inaan maanta ku soo dhaweeyno dhammaan wasiirada la magacaabay oo prime ministerka uu magacaabay inaan ku soo dhaweeyno boqolkiiba 90 soo dhaweeyeen inaan ku soo dhaweeyno ayaan halkaan maanta ugu imaanay gaar ahaan waxaan u imaanay inaan ku soo dhaweeyno ama aan u hambalyeeyno ama aan salaano ama aan halkaan ku soo dhaweeyno injineer Cabdi Canshuur Xasan Cabdi Canshuur Fidni taageerina kuna taageerina hawsha loo magacaabay waxaan leenahay Cabdi waa u qalmaa waa ka sareeyaa meelaha qaarkood waa nin hoggaan fiican leh ummadana ay ku kalsoon tahay baxdu ka dhashayna ay taageersan tahay ugu dambeyntii halkaasi waxaa ka hadlay wasiirka qorsheynta maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Cabdullaahi Gibiley oo sheegay in uu aqoon wanaagsan u leeyahay wasiirka boostada isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada isla markaana uu yahay nin howlkara sidoo hadalka u dhigay hadii soo qabanqaabisay xafladan qiimaha badan ee lagu taageerayo injineerka anigu muddo aan aqaanay injineerka waxaan baranay 2015 muddadii aan isnaqaanay waxaan ku aqaanaa howlkarnimo daacadnimo shaqo hufan oo yaqaano kulley xagga qabiilka marka la yidhaahdana sida ugu faraduduwaya dhalantii waan la soconaa marka waxaan leeyahay injineerka welcome to clubkaas oo ah siyaasadda mudooyinkii la soo dhaafay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho waxaa ka dhacay munaasabado lagu soo dhaweynayay wasiirada cusub oo soo magacaabay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre